Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan ka sheekeyn doonaa filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo High Tension. Haddii ay tahay markii kugu horreysay oo na soo booqato, fadlan subscribe saar channelka oo sii share garee saaxiibada si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo kale ah. Mahadsanidin. Filimka wuxuu ku bilaabanaa laba gabdhood oo saaxiibo ah misna aad iskugu dheer oo lagu kala magacaabo Alex iyo Mary ayaa waxay safar ku soo aadayaan magaalada ay degan yihiin waalidka Alex. Labada gabdhood Alex iyo Mary waa laba gabdhood oo heerka saaxiibtinimada u gaaray inay ku heshiiyaan inay labadooda weligooda guursanin. Qoyska Alex wuxuu ka kooban yahay hooyo, aabe iyo wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Tom. Waxayna degan yihiin baadiyaha gobolka Florida, gobol caan ku ah dilka, dhaca iyo dambiyada waaweyn kuwaasoo si maalinle ah uga dhaca gobolkaas. Labada gabdhood weli waxay iska sii wataan safarkooda, waxayna isku adkeynayaan balamaha ay kala galeen ee dhexdooda yaallo. Waxay ku safrayaan dhul lama degaan ah oo aad cidlo ah, hareerahana ay ka xigaan beero. Kadib waxay ku hakanayaan goobta. Kadib Alex waxay aadaysaa suuliga halka Mary ay ku harayso gaariga. Alex waxay ku soo daahaysaa keynta. Mary ayaana markaas go'aan ku gaarayso inay raadiso. Ay ka dhex raadiso keynta. Kadib waxay arkaysaa gaarigoodii oo la kaxeynayo. Waxayna ka soo daba cararaysaa gaariga. Kadib waxay arkaysaa qofka gaariga wadaa inay tahay Mary oo ay prank ku sameynayso. Waxayna soo raacaysaa gaariga. Kadib waxay soo gaarayaan gurigii ay deganaayeen Alex waalidiinteeda. Si fiican ayaana loo soo dhaweynaa. Kadib markii ay iswareystaan, gabdhaha waxaa loo dhaadhicinaa gudaha. Alex waxay saaxiibteeda Mary ku soo dhaweynaysaa gurigooda. Waxayna uga sheekeynaysaa arrimo ku saabsan qoyskeeda, oo ay ka mid tahay dhaqanka qoyskeeda iyo dacooyinka akhristaan habeenkii intaysan saxan ka hor. Waqtiga jiifka markii la gaaro, Alex waxay aadaysaa bannaanka si ay u soo qaadato sigaarna u soo cabto. Kadib waxay ku soo laabanaysaa halkii loo diyaariyay sariirteeda, waxayna dhageysanaysaa music. Kadib guriga waxaa ku soo dhawaanayo guuxa gaari tarag ah. Eeyga guriga joogana wuxuu bilaabaa inuu qayliyo. Qaylada eeygana waxaa ku soo kacayo Alex. Waxayna bilaabaysaa iyadoo cabsanayso inay ka fiiriso daaqadda. Guuxa gaariga waxaa sidoo kale ku soo kacaya Mary aabaheed. Markuu albaabka furana waxaa wajiga looga dhufanaa baangad. Alex way maqlay qaylada Mary aabaheed, laakiin cabsi badan ayaa galaysa. Wayna ku guuldareysanaysaa inay caawiso. Kadib ninkan dilaaga ee naxariista daran wuxuu soo jiidaa armaajo aad u weyn, wuxuuna madaxa kaga burburinaa Mary aabaheed. Halkaas ayuuna ku dhimanaa. Alex aad ayay u baqaysaa, mana garanayso halka laga jiro iyo sidee wax u socdaan. Kadib Mary hooyadeed waxay sidoo kale ku soo baxaysaa qaylada saygeeda, laakiin waxaa si waji ka wajiga kaga hor imaanayo ninkii dilaaga ahaa, wuuna soo cirsanaa. Kadib Alex oo aad u baqaysa waxay dareemaysaa in ninka dilaaga ah uu xaggeeda u soo socdo. Waxayna alaabaheeda qaaliga ah ku qarsanaysaa boorsada ka hor intuusan qolka ugu soo galin. Kadib ninka dilaaga ah wuxuu u soo gudbaa qolka isagoo aysan ka muuqanin wax cabsi ah. Kadib wuxuu Mary ka raadinaa suuliga, iyadana waxay ku dhuumanaysaa sariirta hoosteeda. Kadib ninka dilaaga ah wuxuu u gudbaa qolkii ay jiiftay Alex, taasoo aan war u haynin dhimashada aabaheed iyo waxa ka socda guriga midna. Alex weli waxay iskaga jirtaa hurdadeeda, waxaana qoorta mindi ka saarayo ninkii dilaaga ahaa. Dhanka kale Mary waxay isku dayaysaa inay ka dhuumato ninka dilaaga ah. Waxayna isku dayaysaa inay raadiso taleefankeeda si ay u wacdo booliiska. Kadib iyadoo aad u cabsanayso waxay ku dhuumanaysaa qaanada si aan loo arkin. Dhanka kale Alex hooyadeed waxay soo galaysaa qolkii ay ku jirtay Mary iyadoo aad u naxsan, waxaana soo weeraraya ninkii dilaaga ahaa. Maryna waxay indhaheed ku arkaysaa Alex hooyadeed oo qoorta laga goynayo. Kadib Mary waxay u imaanaysaa Alex hooyadeed si ay u caawiso. Waxayna isku dayaysaa inay dhageysto waxa ay ku hadlayso laakiin ma fahmayso. Kadib Mary waxay soo galaysaa qolkii ay ku xirxirneed saaxiibteed Alex, waxayna ka furaysaa xariggii kaga xirnaa afka. Sidoo kale waxay ka furaysaa silsiladii kaga xirnaa lugaha iyo gacmaha. Kadib waxay maqlayaan qaylo. Mary ayaana waxay u dhaqaaqaysaa dhankii daaqadda. Waxayna arkaysaa ninkii dilaaga ahaa oo cirsanayo wiilkii yaraa ee la dhashtay Alex
ninkii dilaaga ahaa ayaana wiilka yar wuxuu ku cirsanayaa dhanka iyo beeraha, halkaas ayuuna ku tooganaa, iyagana waxay maqlayaan dhawaqa rasaasta. Kadib Alex waxay ka murugoonaysaa dhibaatada soo gaartay qoyskeeda. Saaxiibteed Mary ayaana isku dayaysa inay u qalbi qaboojiso isla markaana sabar siiso. Kadib Mary waxay isku dayaysaa inay la xiriirto booliiska. Wax yar kadibna waxay dareemaysaa in qof uu u soo socdo xaggooda. Waxayna sidoo kale dareemaysaa cabsi aad u weyn. waxayna ka walwalaysaa nafteeda iyo nafta saaxiibta. Ninkii dilaaga ahaa wuxuu gaarigiisa ku soo xareysanaa Alex oo gacmaha ka xiran. Maryna waxay midi ka soo qaadanaysaa jikada. Ninkii dilaaga ahaa wuxuu calaamadeysanayaa sawirka Alex oo ah qofka kaliya ilaa hadda uusan qabanin markii loo fiiriyo familkii oo dhan. Kadib ninkii dilaaga ahaa wuxuu isku dayaa inuu guriga ka raadiyo Mary laakiin wuu weynaa. Kadib Mary waxay ku soo dhumanaysaa gaariga uu iska lahaa ninka dilaaga ahaa oo ay saarnay saaxiibteeda Alex. Ninkii dilaaga ahaana wuxuu ka soo baxaa guriga isagoo shakisan, halka Mary ay diyaarsanayso mintideeda. Ninkii dilaaga ahaana wuxuu kor kaga qufulaa gaariga labadii gabdhood uuna baxaa. Kadib ninkii dilaaga ahaa wuxuu ku hakanaa kaalin shidaal si uu shidaal u qaato waxna u iibsado. Kadib Mary waxay soo jebinaysaa albaabka gaariga, waxayna ku soo dhuumanaysaa supermarketka si ay telefoon ugu dirto booliiska. Waxayna garab weydiisanaysaa ninkii dukaanka lahaa. Wax kadib waxaa gudaha dukaanka soo galay ninkii dilaaga ahaa oo aysan ka muuqan wax cabsi ah. Maryna halkeeda ayay ku dhuumanaysaa. Ninkii dukaanka lahaa wuxuu arkaa ninkii dilaaga farihiisa oo dhig leh, wuxuuna dareemaa cabsi aad u weyn. Kadib ninkii dilaaga ah wuxuu si degan ninka weydiinayaa inuu ka iibiyo dhalo khamri ah. Markii uu soo qabto oo soo jeestana wuxuu ku dhufanayaa faas, halkaasuuna ku dhimanaa. Kadib Mary waxay isku dayaysaa inay baxsato, waxayna isku soo xiraysaa qol ka mid ah supermarketka. Ninkii dilaaga ahaana wuxuu isku dayayaa inuu raadiyo. Kadib Mary waxay u soo baxaysaa banaanka, waxayna arkaysaa baabuurkii ninka dilaaga oo sii socda. Kadib waxay go'aan ku gaaraysaa inay telefoon u dirto booliiska, laakiin nasiib xumo waxay isku fahmi weynayaan halka ay joogto iyo faahfaahin ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, ciddii ay wax gaareen, iyo tilmaamo ku saabsan ninka dilaaga ah iyo wixii la mid ah. Kadib Mary waxay ku xanaaqaysaa booliiska, waxayna saaraysaa telefoonka, waxayna soo qabsanaysaa bistoolad, waxayna soo kaxaysanaysaa baabuurkii uu lahaa ninkii la dilay ee dukaanka lahaa. Waxay gaariga ku kaxaynaysaa xawaare aad u sarreeyo si ay u soo badbaadiso saaxiibteed Alex. Kadib ninkii dilaaga ahaa wuxuu u dagaa qorsho, wuxuuna gaarigiisa ku baakimaa gadaal, wuxuuna kaga imaanaa dhanka dambe, wuxuuna gaarigiisa ku dhufanaa gaarigeeda, wuxuuna ka saaraa waddada. Kadib Mary waxay ka badbaadaysaa shilka gaariga, waxaana soo gaarayo dhaawacyo fudud, waxayna ku gurgurinaysaa gudaha keynta, waxayna helaysaa budh ay ku dagaal gasho. Kadib waxaa qorsho kale u dagaa ninkii dilaaga ahaa, wuxuuna kaga imaanayaa xagga gadaale, wuxuuna afka kaga duubaa bac, waxayna matalaysaa dhimasho been ah, waxayna isku tuuraysaa dhulka kahor intuusan qoorta kaga qaban midi, una sheegin inay suurtagal ahayn inuu dilo oo uu jecel yahay iyada. Kadib waxay muujinaysaa naxariis been ah, waxayna madaxa kaga dhufanaysaa dhagax, dhulka ayuuna ku dhacaa, waxayna ku celcelinaysaa dhowr jeer iyadoo isticmaalaysa budhkeeda, waxayna ku garaacaysaa budka ilaa uu ka dhinto oo muuqaalkiisa isbedelo. Kadib booliiska waxay soo gaarayaan supermarketkii uu dilka ka dhacay, waxayna sameynayaan baaritaano. Waxay sidoo kale daawanayaan video ay duubto kaamirada ku xidhan dukaanka, taasoo laga arkayo Mary oo dilaysa ninkii lahaa dukaanka. Booliiskana wuxuu ku dhawaaqaa inay Mary tahay qof ka dambeeya dilalka dhacay oo dhan. Kadib Mary waxay gaariga ugu galaysaa saaxiibteeda Alex si ay u soo xoreyso. Kadib Alex waxay la soo baxaysaa Torrey, waxayna saaxiibteed Mary u sheegaysaa inay ka fogaato, waxayna ku eedeynaysaa inay dishay familkeeda oo ay baabisay nolosheeda. Mary waxay la yaaban tahay eedeynta ay u jeedinaysa saaxiibteed Alex. Kadib Alex waxay saaxiibteed Mary kaga dhufanaysaa wajiga Torrey, wayna cararaysaa. Kadib waxaa soo rogaal celinaya ninkii dilaaga ahaa, wuxuuna beegsanayaa gaarigiisa. Maryna waxay soo qaadanaysaa mashiinka lagu jaro geedaha, waxayna ceyrsanaysaa saaxiibteed Alex. Sidoo kale ninkii dilaaga ahaa wuxuu soo qaadanayaa isla mashiinkaas si uu u dilo labada gabdhood ee u haray. Alex waxay joojinaysaa gaari waddada socday, waxayna weydiisanaysaa inuu badbaadiyo iyadoo u sharxaysa waxa ku dhacay. Kadib ninkii gaariga watay wuxuu ogolaanayaa inay gudaha soo gasho, wuxuuna isku dayaa inuu gaariga dib u kiciyo, laakiin wuu ku guuldareysanaa. Alexna wuu ku qaylinaysaa, waxaana gadaashooda ka imaanayo ninkii dilaaga ahaa isagoo mashiinkiisa ku kala jarayo qaybta hore ee gaariga, isla markaana laba qayb u kala jarayo ninkii gaariga watay.
Alex waxaa soo gaaraya dhaawac daran oo ku kalifaya inay socon weyso. Kadib waxaa horteeda ka imaanaya ninkii dilaaga ahaa oo wata mashiinkiisa. Way baryaysaa si uu nafsadeeda ugu dhaafo. Kadib ninkii dilaaga ahaa wuxuu dhulka dhigaya mashiinkiisa. Laakiin ninkii dilaaga ahaa wuu dhimanaa, waxaana meel yar ka soo tooganayso Mary. Waxaa dib u soo helayo labada gabdhood. Mary ayaana bir hore caloosha kaga jirta waxay ku mudaysaa saaxiibteeda Alex iyadoo leh cidna nama kala fogeyn karto. Kadib Mary waxay saaxiibteed ku leedahay waan ka soo wada baxnay balantii ama waan wada noolaanaynaa ama se waan dhimanaynaa. Labada gabdhood waxay ka badbaadayaan khatarta dhaawacyadii soo gaaray, waxaana Mary la geynaa goobta lagu dabiyo dadka dhimarka ka xanuunsan. Waxaana soo booqanaya saaxiibteed Alex. Filimkan halkaas uu ku dhamaanaa. Haddii aad ka heshay filimka, fadlan like saar, subscribe na saar channelka, una sii share garay saaxiibada si aan u soo badino filimada noocan ah. Mahadsanid.